muddo 8 cishaa kadib waxa uu Honkebel TV dib ugu soo laabtay hawada kadib markii ashkata ka timid xilliga shanaada Itoobiya ay u gudbiyeen satellite-ka RR Media taasoo sababtay in Honkebel TV laga daawan qaaradda Afrika inteeda badan waxaana ashkatadaasi ay sameeyeen xilliga shanaada ay timid kadib markii ay ka biyadiideen barnaamijyada warar uu telefishan ka sameeyay dhacdadii gaashaamo gaar ahaan Jaamac Dubad arrintaas ayaa sidoo kale sababtay in afduub loo geysto wariyihii Honkebel TV uga soo waramayay gobolka Gabiley Mukhtaar Nuux Ibrahim waxaana goor habeenimo isagii afar wariyo oo kale laga geeyay magaalada Jigjiga ee xarunta xilka shanaad Itoobiya isagoo wariyaha si gaar loola hadhay isla markaasina xabsiga loo taxaabay waxaana maalintii ku xigtay la soo daayay afartii wariye ee la socotay waxaana Mukhtaar Nuux Ibrahim muddo 7 cishaa sifaan cadeen ugu xidhan yahay magaalada Jigjiga waxaana Honkebel TV cambaaraynaya xariga wariyahaasi isagoo dalbanaya in dib xorriyadiisa loogu soo celiyo xukuumadda hogaaminaya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Seylaani oo iyadu u darbano adeegida iyo ilaalinta xorriyadda asaasiga ee qofka shacabka iyo lahaatan ka hadal xariga lagula kacay wariyahaasi iyo Honkebel TV waxaana inta badan mas'uuliyiinta xukuumadda ka soo baxaya hadallo iskhilaafsan oo sheegay in qaarkood ay la xiriireen qaarna aanay wax xiriir la sameeynin sida ay sheegeen wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cadde iyo wasiirka arrimaha dibadda Mudane Saad Cali Shire waanu kala xiriirnay arrintaasuna si dhaqsaabay u dhamaanaysa haddii alla yiraahdo arrinka xiritaanka wariyaha anu runtii tafaasiishiisa ma hayo laakiin de waxaanu ka rajaynaynaa kana codsanaynaa ciddii gacanta ku haysa inay de u xaq soorto oo ay sharciga bariso Honkebel TV waxa uu si toos ah u bilaabaya shaqadii uu ka hayay geeska Afrika iyo guud ahaanba Afrika isagoo marnaba ka gabanaynin wararka iyo barnaamijyada ku dhisan xaqiiqada waxaana sii deynta telefishan ka shaqeeyay oo hawlo adag ka galay gudoomiyaha Honkebel TV Farxaan Xaaji Cali Axmed agaasimaha guud Maxamed Cabdi Ilig iyo Maxamed Cabdi Colojoog oo mas'uul ka ah waaxda qaaradda Yurub ee Honkebel TV Maxamed Kuraase Honkebel TV Hargeysa